munaasabad si wanaagsan loo soo agaasimay oo xariga lagaga jiray warshad cusub oo soo saaraysa biyaha ayaa ka dhacday ismaamulka magaalada Dirdhabe ee dalka Itoobiya waxaana furtaankii munaasabada xafladda xariga lagaga jiray warshadan cusub ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan ismaamulka Dirdhabe mulkiilayaasha maalgeliyay warshadan iyo marti sharaf kale waxaana warshadan oo soo saaraysa biyaha nadiifta ee caagadaha ah oo lagu magacaabo Vita Spring Water ayaa xariga waxa ka jiray ku-xigeenka duqa magaalada ismaamulka Dirdhabe mudane aadan Faarax waxaana mas'uuliyiinta ay xafladan ka soo jeediyeen hadallo ku aadan furitaanka warshadan cusub ee maalgashi ku sameeyeen qurbajo ka soo jeeda deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan 8 qurbajoog ah waa kuwan iyaguna mulkiilayaasha maalgeliyay warshadan cusub ee soo saaraysa biyaha oo ka warbixinaya mashruucan ay hirgeliyeen iyo warshadan cusub maalgashi ay sameeyeen dadka u dhashay gobolka lacagta iyo kharashka ku baxayna waxa weeyaan 1.7 ama hal $7 milyan lacagtaasina waa dad u dhashay deegaanka Soomaaliyeed oo maal gashanaya dhulkooda Itoobiya ay u dhasheen aanan ahayn midii u dambeysay laakiin aan dhihi karno waa projectii ugu horeeyay ama mashruucii ugu horeeyay laakiin ay daba socon doonaan mashruucyo badan waxaan ka mid waddanka Mareykanka waxaana ay dadka ka qayb qaatay hirgelinta warshada Vita Spring sidoo Cusmaan sheegay warshadu waxay socotay barnaamijkeedu muddo 2 sanadood ah xaluunta maalgeliyay lacag fara badan baliyada wax la jira taasi waxay ka dambeysay markii ay madaxda dawladda federaalka iyo madaxda kilka Soomaalida especially madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ay banaanka noogu yimaadeen oo ay sameeyeen campaign inay dadkii qurbajooga ah waddanka dib ugu soo laabto oo ka qayb qaato aqoontiisa iyo horumarintiisa iyo developmentigiisa baaqyo fara badan iyo dadaallo fara badan ay sameeyeen ka bacdi ayay dad fara badan oo qurbajoogi ka soo jawaabeen arrintaas oo ay maalgelin fara badan ka sameeyeen guud ahaan dalka Itoobiya from Addis Ababa Dirdhabe to Jigjiga iyo inta ka soo hooseysaba warshadan cusub ee soo saaraysa biyaha oo kamid ah warshadaha casriga ee laga hirgeliyay ismaamulka Dirdhabe ayaa waxa ku baxay lacag ka badan 230 milyan oo bir sida ay sheegeen mas'uuliyiintan waxaana fursado shaqo ka helaya 160 muwaadiniin ah inta kadib ayaa waxa si wada jir ah loo soo booqday qaybaha kala duwan ay ka kooban tahay warshadan ee dhanka wax soo saarka biyaha nadiifta ah taasoo halkaan sharaxaad ay ku siinayeen maamulka warshadan tayada iyo waliba xagga wax soo saarka warshadan cusub ee soo saaraysa biyaha ee Vita Spring Water Ahmed Kabe telefishinka caalamiga Universal Jigjiga